ilmaha habaarin nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ilmihiina habaarina xoolihiina habaarina naftiina habaarina waxa dhici karaysa habaarka adiga ka soo fakanayay inuu la kulmo saacad wax walba la aqbalo oo habaarkii ilmahaaga habaartay la aqbala dhici karaysa uu ku dhaco oo ilmahaagi adigu intaad kharibtay aad tiraada bari war ii quraan saara xal quraan saara adaa habaarey ya sidaas daraadeed ilmaha inaan la habaarin bal loo duceeyo hatta hadii marka qaar ko qalloocdaan oo ay ka yara fasaadaan ducada kaasho ilaahi u bari tabaaraka wa taala ilaahi ba islaaxiya taana waa layna baraya ilmaha markaynu walaalayaal saa u tarbiyeyno mawjad adag baa ina haysata hadaynu nahay muslimiinta keeni weynaa iyo keeni yaraaba waxa target ah oo caalamka kufriga iyo inta raacsan ba loo soo jeedsaday in akhlaaqdeeni iyo diinteeni iyo aqeedadeeni iyo dhaqankeeni xididada loo siibo waxa loo isticmaalayaa arinta iyada in la xaqiijiyo wasaa'il xoog badan oo naga awood badan xaalad noocaas oo kale markaan ku jirna waxay u baahan tahay waalidku iyo dadka inta wax garanaysa dadaal siyaada in la bixiyo oo muxuu ahay ilmihii lagu bixiyo oo ubadkii lagu bixiyo oo ilmihii sidii loo xifdin lahaa loo ilaalin lahaa yaani waxay lagu dadaalo caruurta inaadan sabab ugu noqonin in aad geyso mujtamacaad iyo bi'ooyin keeni karaya inay ku fasaadaan mujtamaci hadduu yahay mujtamac khariban iskuulkiina khariban yahay dariskiina khariban yahay miidiyihiina khariban yahay adigii iyo odaygiina aad intaad is arkaysaan ba yar tahay ilmahaasi hadduu halaabo wax lagula yaabo male hadday gabar tahay hadday wiil tahay sababtu maxay tahay boqolkiiba 95 wax fasaadinayo ku dhex jira shanta yartee soo hadhayna waxa ma qaban karto marka ilmihii inaad risq ku raadsato oo adiga biil ku qaadato oo gaalada magtooda kaga urursato oo iyaga aakhiradoodii iyo diintoodiina aad badda ku shubto sax ma hawshaasi waa hawl isaga daba iimaan doono ilaahayna tabaaraka wa taala waalidiinta nooca sameeyay aday adduunka ku badbaadaan aakhiro su'aal adag baa u taal walaalayaal caruurteena markaynu tarbiyeyno hagaajisano maxaynu dheefsanaynaa faa'iidooyin badan baynu guranaynaa koo waxaynu helaynaa caruurtu adduunka baari bay inoo noqonayaan intaad wada nooshihiin hooyanimay ku ictiraafayaan way baari bay ku noqonayaan amarkaagay qaadanayaan way ka dambaynayaan ayagiyo xoolahoodaba adaa iska leh adigoo da'o cad ah oo sariirta yaalayna kaaga dhaqaaqayn waa kugu dul dhimanayaan ayagiyo xoolahoodiiba laana wax way tarbiyo wanaagsan baa tarbiyaysa ilaahay baad ku xidhay allihii aad ku xidhay baa adigana ku cabiidiyay allihii aad ku xidhay ayaa ku cabiidiyay awlaadda waxay baraysaa diinta markaad barto waxay baraysaa xuquuqda waalidkay baraysaa waxay gaarsiinaysaa heer ay ku tiraahdo gabadhii iyo wiilkii ay ku tiraahdo janno hadaad rabto waalidka soo mar waalidka cagtiisa hoosteeda ka raadso jannada hadaad waalidka raali geliso ilaahay baad raali gelisay hadaad waalidka caaq ku noqoto naar baad gelaysaa ilaahay baad ka cadhaysiisay ilma qaabka lagugu tarbiyeeyay oo sida lagugu leyliyay ilma noocaas ku soo baxay wabitaali inta aad nooshahay noloshaada baarinimo inay ku ilaaliyaan qalbigaaga ilaaliyaan amarkaaga ilaaliyaan caafimaadkaaga ilaaliyaan adiga iyo kugu dul wareegayaan siday doonay ha ahaado ilaahu magacu doonay mulahaado ilaahu madaxweyne ahaado ilaahu caalim ahaado ilaahu aqoonyahan ahaado ilaahu dhaqaaliyahan ahaado hooyo ayaa madax u ah sababtu wax weeye tarbiyadaas ay diintu bartay midahaasaad goosan baynama caruurta hadaan tarbiyada diiniga alla barin ayagii baa waalidka marka dambe culays ku noqonay inuu baari ku noqdo iska dhaafay marka dambe heer waxaad gaaraysaa aad tiraahdo alla habeenkan dhalahay wala inaan iska seexda ay dhaantay habeenka maxaa isagii iyo adigii kadeed iyo rafaad iyo dib ya aniga waxaan goobjoog ahaa daris la ah islaan
wiilkeeda garaaca wiilku daroogu bartay qaad buu bilaabay sigaar buu bilaabay daroogadu bartay maamadani marka lacagta uu daroogada ku iibsanay iyadu u soo raadsadaa markuu ka waayana wuu dilaa wuu garaacaa maalinka ay jeebkeeda wax ku og tahay guriga way joogi oo imaanshihiisay sugi oo markaasay siini wuu ka tegi maalinka jeebkeedu maran yahay waa inay guriga ka qaxdo ma seexanayso reeraha dariskay la soo seexani ilaa ay wax soo hesho ay wiilka ku qanciso guriga imaan mayso kaasoo kale habeenkiisa in la iska seexdo soo ma dhaabin ya hal iska seexda dhaat ilmihi marka waxa isaga lagu ciqaabi fala tu'jibka amwaluhum wala awladuhum inma yuridu Allah an yu'adhibahum biha munaafiqiintii gaalada markuu ilaahay ka hadlay wuxuu yiri caruurtoodii xoolahoodii inay ku cajabinin wuxuu ilaahay doonayaa in xoolahoodii caruurtooda lagu cadaabo adduunka intay joogaan aakhirana ay naar ku galaan marka ilmahaagiiba hadii cadaab lagaaga dhigo soo kadeed ma waxay ka iimaanaysaa adiga ayaa dadaalkii la rabay aan bixinin tarbiyadii baad lumisay khaladaad adigu gashay bay inta badan ka iimaanaysaa marka diinteenu caruurtii bay inoo tarbiyanaysaa caruurtii bay ku leeylaysaa taa waa qodob nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markay saxaabadu weydiinuu yiraahdeen rasuulka ilaahay oo cid aan ihsaan iyo wanaag u sameeyay yaa ugu mudan hooyadaa buu yaa ku xiga hooyadaa buu yaa ku xiga hooyadaa buu yaa ku xiga aabaha buu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu garanayaa hatta aabihi inaad saddex goor ka xaq badanta oo marka afraad kaalinta afraad aabuu soo galay ilmaha sida u garanaya billahi alayka adduunka inta joogtaan sidee baad ka fili kartaa ilma qaabka loo tarbiyay sidaas weeyaan waa ilma wax walba kula diyaar ila godku ku hubsado taasi waa qodob waxaan ka helaynaa oo kale ilmihii sida aan u tarbiyeyno diin ku tarbiyeynay hadaynu ka hormarno oo aynu qabri galno halka inagoo ku jirno qabriga ku jirno in anfici nabigeenu sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlayay ducooyinka markuu ka hadlayay waxyaalaha aan gu'in oo ruux markuu dhintay kadib u socon doono markuu ka hadlayay wuxuu ku daray awwaladin saalihin yad'u lahu ilma wanaagsan oo ifka kaga tagay oo u soo ducaynay waxa laga yaabaa amalkaagi aad samaysay adduunka intaad joogtay inuu cadaabka qabriga cadaabkiisa ka badbaadin waayo oo ilmahaagiyo ku soo ducaynay ilaahay cidiriga qabriga kaaga saaro oo qabriga ugu iftiimiyo oo aad qabriga ku intifaacsato adduunki kaliya ma hatta hadaad kala tagtaan ilmahaagi qabrigu kugu anfacaya laana walad saalix waa sidoo kale inta kaliya ma aha hadii qabriga aad ka baxdo aakhira la isla tagana ilmuhu waalidkiiba u shafeecaya quraanka aad bartay khalqi aad u farabadan buu u shafeecaya rabbi waa ka waalidkay waa ku ergoonaya waad islaaxisay waa ku ergeynaya shafaacadiisa inaad jannada ku gashaa dhici karaysa cadaabna kaga badbaado in aad ilmahaagi iyo adigu aad jannada mar kale ku kulantaan adduunka saad u wada joogteen oo halka isugu timaadaan soo macna weyn kuma fadhido waxay ku iimaanaysaa ilmaha inaad diintiisa iyo iimaankiisa akhlaaqdiisa ka dadaasho waa ka rabbigeena inoo sheegay tabaaraka wa tacaala walladina aamanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min shay kuwi iyagii caruurtoodu iimaanka isugu yimaadeen oo wanaagsanaayeen aakharan isugu geynayna iyagii caruurtooda rabbi tabaaraka wa tacaala jannada la isugu geynay yaani wax weeyaan awlaad wanaagsan oo qiimo leh markaad adiga hagaajiso cidda ugu horeysa ee mid goosanaysa adiga waa jannadii aad ku rafiiqaysaan qabrigii buu kugu soo ducaynaya qiyaamadii buu ku shafeecaya adduunka intaad joogto baari buu ku yahay wixii uu yahay baad wax ku leedahay nabigu wuxuu ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam markuu la hadlay caruurta la hadlay anta wa maluka li abika buu nabigu sallallahu alayhi wasallam
adiga iyo xoolahaagaba aabbahabaa idin leh hooyaduna waa ka sii xaq jirtaa ya nin muxuu ahaay waxoogaa duqa aabbahay ah xoolahayga wax ma ku leeyahay ma qaadan karaa ma ku tasarrufi karaa war xoolahaaga iska daayay adigu ku leeyahay baa lagu yiri adiga iyo xoolahaagaba aabbaa idin leh sababtu wax weeye waalid xaqiisu rabbi tabaaraka wa tacaala quraanka kariimka markuu ka hadlayay xaqiisa markuu dadka u sheego waalidka xaqiisu daba dhigaa وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك لبدا والد بعد دبيا لحق الرب تبارك وتعالى حق لبدا والد بعد دبيا دينتين ولا ليال وقالي مركز اسقرب لكتان قابك المهنة أي دينتين وقو تربيينيسو iyo qaabka gaalada iyo reer galbeedku waalidkii caruurta ay u kala dilayaan shatana ma baynahuma ma bayna as-samaa'i wal ard ayagana waxay ku tarbiyeynayaan caruurta asagoo yaro waalidkiisu gacanta ku hayo yaa waxa lagu tarbiyeenayaa waalidka iska ilaali waalidka iska jir waalidka wuxuu ku yiraahdaa soo sheeg waalidka jaajuus ku noq nabar haduu ku gaarsiyo soo sheeg xagtiin yar haday ku gaadho waalidka soo dacweey nambarka qaado soo wac iskuulka markuu tago waxa la leeyahay yaa sidan ku yeelay waalidkaas ayuu kula hadlaa ma lagu garaaca waalidkii iyo ilmihiisiba cadaawad la dhexdhigay waaba la isku dirayaaba isagoo yar baa la isku diraya ilmihii wuxuu noqonayaa ajnabi jaajuus ah oo guriga jooga oo waalidkiiba ka horjeedaba saasa lagu barbaarinaya waa la korinaya markuu weynaadana oo uu xoogaa uu waalidka ka baxana isma ba yaqaanaan habartii dhashay dan kamala wehel male walaga yaaba qaar badan kamidanaad ka timaadeen wadamada reer galbeedka ama soo aragteen hooyo dhowr ilmood dhashay oo habar ah oo daa oo xilligii la xanaanan lahaa joogdo gacanta lagu hayn lahaa hal mid kama hayso kaligeed bay guri ku nooshahay stress iyo isla hadal cudurray qaaday wehel male marka ugu dambeysay ay bay wehel uga dhigaan ay baa wehel waa caruurteedina ma hayso wax u iimaanay ma jiro ka ugu baarisani waxa weeyaan caruurteeda waa midka munaasabaadka xilliga fasaxyada iyo holideeyada midka waraaq u soo dira hambalya ah kaas caruurta ugu baarisan midka intuu soo booqdo saacada la joogo soo salaama kadibna isaga taga ugu baarisan ilaahay baan idinku dhaariyay bal manhajka ilaahay iyo manhajkii gaalka cad isu fiiriye annagana diinteenu maxayna tiri hooyadaada duqda ah ee sariirta saaran ee meesha ku urursatay madaxweyne hadaa tahay saxarada ka buu adeeradaas madaxweyne isu ah adiga iyada madaxweyne kuwa saxarada ka hagaaji ya kaayida ka hagaaji haddaad yeeli weydo Soomaa cadaabka ilaahay baa lagu kuusi bal في سيد الله ما تقول منهج إلهي سود شيء وآدمها احترامي ووالد حقي سجرني وهو يحق هذا جرني وهل كهدي أيا أنت الله ينوجد دريبة وحال ليه قال وحي ململوضي وقشن بلدوني إن لي نوجد بدله ولا إن إذا ذوات البحن مدي واكهر مركي ورادات هرمري البحن ما هيسان والد كان أي جعنها يكيل عليه وعرورتي سوداي عرورتي سوداي إلهي بقى محسن تبارك وتعالى haddaynu marka garan weyno inaynu diinteena caruurteena ku tarbiyino midhaha ka dhasha iyo dhibka ina soo gaara inaga ayaa sababnay waalidka sababay haddaad ilmahaaga ku tuurto badweyn oo akhlaaqda ka lumiso la dadaali weydo ama aad moodaba wixii lagu diray kaliya inuu yahay inaad cunto siiso cabitaan siiso hoy u diyaariso kadibna iskuul geyso bas iskuul geyso jaamacad magaca ka saarto waxaasi macna weyn kuma fadhido waa adduunyo ومباحات ويسكبنانتا لكن قضيتي مهمة الراسمال كوحوي عرورتا إن إله هودنا لو خيرو لا تربيته آخرته الله إصلاحيه أخلاق الله إصلاحيه دين تلبره لا تربيه مبدأ هذه كانوا كو أنفعي إيجانا أنفعي ومدنا أنفعي ضلكنا أنفعي واحترنا يكوي لنا عرورتا تايدا وي مركا أين نددال إن شاء الله تعالى حالات أدق يا مرحلات أدق يا موجودة